daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhawow IM252 indhahaagu waxa ay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee jirkaaga waan hubaa in muhiimad gaar ay ku leeyihiin sida aniga oo kale shaashadaha taleefanadeena waxa ay bixiyaan ilaysyo laga yaabo in ay indhaha waxyeeleeyaan haddii waqti dheer la isticmaalo telefoonka waxayna ugu sii daran tahay xilliyada habeenkii ah waayo qayb ka mid ah iftiinka ay shaashaduhu bixiyaan waxa dharaartii qariya ilayska qoraxda muuqaalo dhowr ayaan uga hadli doonaa ee baidankii xiriirka ka dhaxeeya indhaheena iyo shaashadaha taleefanadeena muuqaalkan ayaana ugu horeeya oo aan uga hadli doono sida aad indhahaaga uga badbaadsan lahayd iftiinka shaashadaha iPhone-ka kuwa Android-kana waan samayn doonaa ee baidankii si aad iftiinka uga badbaadsato iPhone-kaaga laba midkoodba waad samayn kartaa qaabka koobaad waxa uu shaashadaada ka dhigayaa xilliyada habeenkii mid aanan indhaha dhibayn waxa uu iftiinka cadaanka ku bedelayaa mid xoogaa uu diirimaad ku jiro si uusan iftiinka cad indhahaaga u dhibin si aad u adeegsato qaabkan kaliya gal settings kana sii gal display and brightness kadibna taabo night shift si aad markaaba shaashadaada uga dhigato mid aanan indhaha kaa dhibayn taabo enable until tomorrow balse ogow haddii aad halkan on ka dhigato maalin kasta in aad sidan oo kale on ka dhigato ayuu kaaga baahanayaa si aad xilliga habeenkii u saarato on ka dhigo scheduled kadibna taabo meesha ka hooseysa ee ay ku qoran tahay from iyo to haddii aad doonto in uu telefoonkaaga iskiisa isu saaro inta u dhaxaysa gabaldhaca iyo qarax soo baxa subaxii taabo sunset to sunrise markaa kadib telefoonkaagu waxa uu iftiinka yarayn doonaa maalin kasta maqribkii ilaa iyo subaxii haddii aad waqti gaara dooranayso taabo custom schedule kadibna xulo xilliga aad jeceshahay in uu telefoonkaaga iftiinkiisa yareeyo maalin kasta intaa kadib telefoonkaaga shaashadiisa waa uu yareynayaa iftiinkii caddaa ee uu maalinkii bixinayay si uusan indhahaaga u dhibin qaab kale ayaa jira balse qaabkan iftiinka indhaha looguma talagelin aniga ayaase is-iri waa looga faa'iidaysan karayaa waana qaabka aan doorbido in aan iftiinka shaashadayda isaga yareeyo oon anigaba adeegsado si aad qaabkan u adeegsato gal settings kadibna general kadibna accessibility kadibna sii gal display accommodations halkaana kaga sii gal invert colors kadibna on ka dhigo meesha ay ku qoran tahay smart invert habkan sidaad u jeedo waxa uu isweydaarinayaa midabada telefoonkaaga oo idil oo meel kasta oo cadaan ahayd madow ayuu u bedelayaa madowgana cadaan ayuu u bedelayaa sidaad u jeedo barnaamij kasta oo aad furto iftiinkiisa waa uu daminayaa oo madow ayuu ka dhigayaa shaashadiisa maadaama uu markii hore midabka cadaanka u badnaa sidaana waxaad telefoonkaaga uga dhigatay madow aan indhaha kaa dhibayn iyadoo weliba shaqada telefoonkaaguna aanan waxba iska bedelin oo aad sidii hore u adeegsan karto waan filayaa inaad ka faa'iiday fadlan hoos ugu yeer saaxiib adeegsada iPhone una sheeg inuu indhihiisa sidan uga badbaadsado iPhone-kiisa ama iPhone-keeda fadlan ha ilaawin inaad subscribe garaysato kanaalka YouTube-ka ee IM252 like garaysatana bogga Facebook-ga ee IM252 si aadan u seegin muuqaalada xiga ugana faa'iido sidan oo kale ku guulayso eebba idankii wax kastoo aad filayso in aad ku guulaysato